رمضان مبارك sidoo kale kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ma ogtiin kan waa maalinle sida caadi waxaan ku soo qaadanaa sheekooyin kubadda cagta kuwa ka warqabtiin iyo kuwa naga qarsan maanta miiska waxaa noo saaran saddex qodob kuwaas oo dabcan kala taaban doona macalinka caanka ee Antonio Conte kooxda Sacuudi Carabiga ka dhis Al Hilal iyo qaaradda Aasiya rekoorka ka haystaan iyo waxaan kala soo qaadan doona legendiga caanka Nicolas Anelka iyo English Premier League dabcan rekoor gaar u leeyahay markii la fiiriyo ciyaartooyda Faransiiska ah waxaa markood ku bilaabana ma ogtiin Antonio Conte noqonaya macalinka afraad ama uu noqday ee u suura gashay labada kooxood London ka dhisanay caanka Chelsea Spurs inuu isku maamulo waxaan ka warqabnaa Conte xilligiisii Chelsea marka koowaad uu guuleysto wuxuu u qaaday English Premier League kadib shaqadiisa fashilmatay uu isaga tagay dhankaasi Talyaanigu aad Inter Milan oo qabtay ugu dambeyntii Inter ka soo tagay markii dambe wuxuu qabtay kooxda Spurs seasonkii koowaad wuxuu keenay kaalinta afraad laakiin xilli ciyaareedka ma uusan dhameysan oo shaqada waa laga raacday kadib markii maamulka isku dhaceen guuldarooyinka dhankiisa ay soo mareen saa darteed marka sida rasmiga ah Antonio Conte waa macalinka afraad ee taariikh ahaan u suura gashay inuu isku leeliyo kooxaha dabcan Spurs iyo Chelsea zamanka English Premier League waxaan soo qaadan karnaa macallimiintaas kamid ah markii aan Conte meel iska dhigno Andres Villas-Boas oo kale macalinkii dhalinyarada ahaa ee Portugiiska ahaa oo dabcan Chelsea hogaamiyay kadibna Spurs qabtay sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Jose Mourinho oo taariikhda Chelsea wax weyn ka bedelo guulada dahabi la gaaray asigana mar dhaweed wuxuu qabtay kooxda Spurs inkastoo uu ku fashilmay iyo waxaan kala soo qaadan legendiga Ingiriiska ee caanka kubadda cagta ciyaari jiray xitaa xulka Ingiriiska soo maamulay ninka lagu magacaabo Green Hodel oo asigana Spurs iyo sidoo kale dabcan soo maamulay sida u diiwaan gashan Chelsea waa afarta macallin ee taariikhan u suura gashay inay maamulaan labadaas kooxood ee caanka isku dabcan xilliga zamanka Premier League ee bal markaan soo qaadan qodobkan la barnaamijkeena ma ogtiin wuxuu noqonayaa kooxda Al Hilal oo Sacuudi Carabiga ka dhisan waa naadiga ugu guulaha badan koobka laga ciyaaro Asia Champions League ama loo yaqaan FC Champions League oo ay dabcan tartanka ugu xiisaha badan qaaradda Asia laga ciyaaro Al Hilal waxay koobkan ku guuleysteen 4 jeer taariikhdan waa kooxda ugu badan ee competition-ka qaado sida rasmiga u diiwaan gashay Al Hilal sanadaha kala duwan ee qaadanay FC Champions League ama koobka qaramada Asia koobka Asia laga ciyaaro ee Champions League kooxaha loo dhigo waxaa dabcan qaaday markii ugu horeysay 1991 markii labaad waxay qaadeen sanadii 2000 markii saddexaad waxay qaadeen 2019 markii ugu dambeysay waxay ku guuleysteen 2021 saadarta Al Hilal oo Sacuudi Carabiga ka dhisan waa kooxda ugu hanashada badan tartanka AFC Champions League ama Asian Football Club Champions League ee kooxaha Asia loo dhigo sida rasmiga diiwaan gashan ugu dambeyntiina waxaan soo qaadan karnaa legendiga Faransiiska ee caanka ee weerarka ciyaar jiray laakiin kubadda cagta saga fariis Nicolas Anelka ma ogtiin inuu Faransiiska labaad ee English Premier League ugu goolasho badan sidoo kale tan waa Faransiiska labaad u suura gashay English Premier League inuu 100 gool iyo ka badan ka dhaliyo labadaas darajo Anelka waxaa kaga horeeyay ama dabcan la wadaago Thierry Henry oo caan ku ah kooxda Arsenal hadii Henry meel iska dhigo waa Faransiiska labaad ee u suura gashay EPL inuu dabcan shabaq gaarsiiyo 100 gool waxaa kale oo u suura gashay Anelka inuu ciyaaro in ka badan 6 kooxood English Premier League waayihiisa ciyaaraha sida rasmiga u diiwaan gashan Anelka wuxuu shabaq gaarsiiyay 125 gool English Premier League waxaa ka badan oo kaliya ciyaartooyda Faransiiska Henry oo shabaq gaarsiiyay 175 gool marka Anelka fiirna socdaalkiisii dabcan English Premier League kooxaha u soo ciyaar 6 kooxood waxaa kamid ah Arsenal Liverpool hadda ka hor ama ugu ciyaaray sidoo kale Man City oo soo maray Bolton Wanderers waqti fiican ku qaatay Chelsea waqtigiisa ugu fiican ku qaatay iyo ugu dambeyntii West Brom oo ciyaar 6daas kooxood oo kala duwan Anelka wuxuu ku soo qaaday socdaal ciyaareed oo kala duwan guud ahaan barnaamijkeena ma ogteen intaas nooga egyahay waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته